kulankani waxa mid ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada degmooyinka Cabduwaaq Balanballe iyo Dhabad ayaa lagu qabtay hoyga dhaqanka ugaas Maxamed ugaas Axmed ee magaalada Cabduwaaq. Kulanka waxa ka soo qayb galay ugaaska beelaha Sade xildhibaan Ra'iisul Qorana Abshir maamulka degmada odayaasha guurtida ururada haweenka dhalinyarada wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Kulankan waxa looga hadlayay door dhalinyarada ee ku aadan wacyigelinta bulshada, isku xirka bulshada iyo booliiska, mahadcelinta iyo dhiirigelinta haldoorka bulshada. Waxa uu horeyn ka hadlay kulanka gudoomiyaha degmada Cabduwaaq Muxiidiin Aadan Wali isagoo u mahadceliyay dhalinyarada soo agaasitay kulankan. runtii waxaan maaragtay ka mahadcelinayaa shirkan ay dhalinyaradu soo abaabushay iyadoo kaga hadlaysa wacyiga bulshada in kor loo qaado sida nabadgelyada oo aad lafdhabar uga ah guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanadan aan ku noolnahay oo Galmudug runtii waan ka mahadcelinaynaa waxaan bogaadinaynaa doorkaas ay dhalinyaradu qaateen waana door ay leeyihiin dhalinyaradu inay nabadgelyada ka qayb qaataan horumarka ka qayb qaataan wacyiga iyo bulshada oo la waaniyo ay ka qayb qaataan. dhankiisa waxaa madasha kelmado kooban ka jeediyay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Cabduwaaq Faa'id Ergo. runtii waan u mahadcelinaynaa ugaaska sida uu nooga ajiibay in hoolka dhaqanka aan caawa ku qabanno haddaan nahay dhalinyarada Cabduwaaq arrintan ku saabsan doorka dhalinyaradu ku leedahay nabadda. mudanayaal iyo marwooyin soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada annagoo intaga mahadcelinayna sidaad u soo ajiibteen kulankii caawa ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada degmada Cabduwaaq qaybaheeda kala duwan. ujeedka iyo hadafka aan ka leenahay kulankan caawa waxa weeye sida gadaashayda ama boorka dambe ku xusan doorka dhalinyaradu degmadaan ay ku leedahay nabadgelyada. waxaad ogtihiin Cabduwaaq dadka ku nool ama nawaaxigeeda waxa ugu badan ku nool waa dhalinyaro. cidda ugu badan ee dhibanaha u ah dhibka ka dhacayana waa dhalinyaro. maadaama intaasi jidho waxaan qaadanay haddaan nahay dhalinyarada Cabduwaaq rag iyo dumarba inaan doorkeega qaadano. waa qaadan jirnay waana u taagnay. qaar ka mid ah dhaqankii iyo haweenka ka soo qayb gal kulanka ayaa dhankooda ka hadlay. cid kasta oo madasha fadhida waxaan ku salaamayaa magaca ay ku fadhiyaan iyo mashabka ay leeyihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحن ملاينا يا هذا الهدوم من جاي شرف لي هاي عاو ميشا وكبحي شيخ يقول لا خير هسيبا بلا باي إلا هدا ينكسو قارتي دلني يروا حفلتنا يسوا بابلين أنا إنسان عادو بأقشوغي حفلتنا كقيب قالوا ومضان إلا بواديو مدي هويني ومد عاو هالكان كسعوته وأيسوا بابلين دلني يرادا دقمد Cabduwaaq iyo Balanballe iyo Dhabad waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ugu dambeyntii xildhibaan Ra'iisul Qorana Abshir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo ugaaska guud ee beelaha Sade ugaas Maxamed ugaas Axmed ee bulshada Cabduwaaq ku amaanay si ugu taagan yihiin nabadda ulana shaqeynayaan cid walba oo ka qayb qaata nabadda. waxaan rabaa marka xafladan quruxda badan caawa waa fadhiyo oo loo leeyahay inoo soo agaasimeen dhalinyarada degmada Cabduwaaq Dhabad iyo Balanballe doorka ay ku lahaayeen oo ahaa doorkii ay ka qaateen oo ahayd nabadda wacyigelinta. mar labaad iyo mar saddexaad anoo u mahadcelinaya waxaan rabaa dhalinyarada in la garab istaago khaasatan culamo diinka inay wacyigelintaas oo kale ay ka sameeyaan masaajidyada ay ka sameeyaan habeenada jamcaha kaliya kulay ba culimadu ay masaajidada aad uga dadka u maalinta jamcaha iyo habeenkeeda. laakiin waxaan rabaa inay waqti kasta culamo diinka ururada haweenka iyo odayaasha dhaqankuba inay mar kasta wacyigelintaas ayaguna ay aad iyo aad ay u wadaan. salaanka bacdi runtii mahad gaara ilaahay ka sokow iyo bogaadin waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada runtii xafladan noo soo agaasintay ku aadan arrimaha nabadda. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bulshaweynta xafladan kasoo qayb gashay ay ugu horeeyaan
xildhibaanada iyo culimaa udiinka iyo maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka waxaan leenahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina runtii waxaan awal isdhihi jiray xafladaha lasoo camiro waa xafladaha ay maaragtay dhaantada iyo waxyaabaha arrimaha siyaasadda looga hadle isma lahayn waxaa laga soo qaybgelayaa ama saa loo soo buuxinayaa arrimaha nabadda runtii degmada waxay ku suman tahay ama sumadeeda ay tahay sumad nabadeed waxaa ka muuqdo iyo maaragtay soo camirista ay soo camireen si gaara waxaan u bogaadinayaa gabdhaha runtii aan ogahay in wakti dambena ay tahay u dulqaatay inay ay sii sal adeegaan ay noo sii fadhiyaan ayagoo runtii aada u danaynayo arrimaha nabadda aada iyo aad baad u mahadsantiin gabdhaheena runtii waa loo mahad celiyey muxuu ahaa ardayda soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa si gooni ah inaan una mahad celiyo una bogaadiyo iskuolka shiro jaamac oo runtii mar walbaba ardayda ka soo baxdo ay noqdaan kaalmaha koobaad waxaan leeyahay maamulkooda iyo maaragtay dadkii ka dambeeyey iskuolkaas ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryeennaa ilaahay inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo korna u qaado maanta meesha ay joogaan meel kasii fiican ilaahay subxana watacaala gaarsiiyaan leeyahay runtii intaan u gudbin arrimaha nabadda kelmadihii halkan kasoo yeeray waxaa kamid ahaa runtii guurkii oo adkaaday oo qoryihii iyo geelii oo gabadhii markii maanta la raba in la bixiyo ama gabadhii maanta lasoo doonayo waxaa lagu xirayaa qori iyo geel runtii maanta meeshay ku harsan tahay waa deegaanada waqooyiga galguduud xaqiiqda markaa idiin sheego galbeed bay ka timid maanta galbeedna waa kasoo suushay ugaasyadoodii iyo culimadoodii baa kasoo suuliyey marka anigu beelo waxaa jiro aynu ballan soo kala qaadanay oo arrintaa inay ka gudbaan aynu kusoo ballanay marka maanta culimadii iyo odayaashii dhaqanka iyo ururadii bulshada way joogaane ayagoo gabdhihiina ay u badan yihiin maanta misla qaadan karnaa inaynu qoriga iyo geela inaan joojino misla qaadan karnaa oo haddii ilaahay nagu ogyahay 10kii geel ahaa iyo qorigii guduudna ah gabdhihii weli ilaa hadda ma soo dhaweyn war gabdhaho ma soo dhaweyseen aye geela miyaan daynaa saas sidoo kale runtii waxaa kaloo iyadana cillad kale oo taagan ah magta iyadana sidoo kale magtii markii qofka uu dhinto waxaa la siinayaa 20 halaad qoyskii dhaxalka lahaa iyada laftigeedana insha allahu tacaala maalinba step aynu gaarsiino ilaa iyo 60 halaad ilaa 100 halaad in la gaarsiiyo taasna insha allah odayaasha dhaqanka iyo culimadaan u daynayna haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaan rabnaa inaynu caawa u istaagno 2 arrimood sidoo kale qorigii oo la dhigo iyo khamrigii oo la zuuliyo iyada laftirkeedana runtii waa arrin aada iyo aada muhiim u ah sidoo kale waxaan rabaa inaan bogaadiyo una mahad celiyo laamaha amniga runtii uu nagala fadhiyo taliyihii qaybta ee galguduud iyo taliyihii booliskaba iyo taliyayaal kale oo runtii ayagana horey uga soo shaqeeyay deegaanka runtii bogaadin iyo mahad celin baan wadnaa oo waa maxay sida aad u qaadateen kaalintiinii ahayd qof kasta oo gacan ku dhiigla ah in lasoo xiro runtii arrintaas bogaadin bay mudan tahay waxaan leenahay garabkiinaynu nahay waa idin garab taagannahay waana idinla shaqaynaynaa sidii ururadii iyo culimadii iyo xildhibaanadii iga horreeyeyba ay sheegeen garabkiinaynu nahay insha allahu tacaala waana idinla shaqayn doonaa runtii waxaan kaloo rabnaa inaan sii adkeenno oo shirar badan looga soo hadlay waa arrimaha khasaasta runtii
degmada caabud waa ma dhahayo balanballe ma dhahayo dhabad ma dhahayo degmooyin kale ma sheegayo caabud waa waxay ku sifowday qofkii qof dilaa in la dilo runtii waana arrin sharaf iyo bogaadin mudan waxaana arrintaas aan uga mahad celinayaa oo hoggaanka ugu horeeya u ah waa odayaasha dhaqanka oo ka zuulay diiday wixii yarka ahaa oo la kala qaadin jiray runtii waan bogaadinaynaa odayaal aada iyo aad baan u mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada oo runtii hoggaan u ahaa waxyaabaha dhacayay oo dhan iyo shaqooyinka dhacayay ayagana waan bogaadinayaa aada iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan rabaa marka hadalkeyga inaan kusoo galanado nabadda haddii aynu dhexdeena ka shaqaynayno waa inaynu u gudubnaa dadka dariska ah ee soomaaliyeed maanta waxaa yaallo gogashii uu hadda ka horna madaxweynihii uu dhigay odayaashii dhaqanka ay dhigeen culamaa udiinka ay dhigeen cid kasta oo waxgarada ay garatay in ay nabaddaas laga wada shaqeeyo oo ah arrintii halkan ka dhacday laadheer oo dadka deegaanka ah oo walaalaha ah oo reer xalaale iyo reer warshe aynu rabno gogoshaa nabadda ah inay ayagana kasoo qayb galaan annaguna aynu ka shaqeyna haddii ilaaha idmo sidii nabad waarta loo heli lahaa dadka deriska ah waxaynu nahay dad wada dhashay dadka deriska ah iyo deegaankanba lama kala tirin jirin dad isku mid ay ahaayeen dad wada dhashay bay ahaayeen haddana dad wada dhashay weeye waxaana runtii aan leeyahay walaalayaal soo dhawaada aynu nabadana ka wada shaqeyno insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan kusoo gunaanoodo dhalinyarada ururka dhalinyarada ah waa mahadsantihiin allah idin barakeeyo shaqada aad haysaan doorka aad qaadateen doorkiinii wanaagsanaa waan idinkugu hambalyeynayna waan idinku garab taagannahay sida la sheegay dhalinyarada waa midi laba af leh haddii dhinaca wanaagga ay ka shaqeeyaanna wanaaggaas wuu shaqeyn haddii dhanka xumaanta ay aadaanna haddii seeftaan la goyn marka insha allahu seeftiina dhinaca wanaagga la aaday insha allahu tacaala aada iyo aadaad umahadsantihiin wakti badan baa la soo joogay ilaahi subxaana watacala waxaan ka baryaynaa abshirta allahna waafaji abshirta allahna waafaji dhibka iyo shiddada allah naga dulqaado nabad khayr qabto oo waartan allahna siiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii xafladan kasoo qayb gashay kasoo shaqaysay ilahay inuu gul iyo gobonnimo korna ka yeelo especially khaasatan gabdhihii noo dhabar adeegay ilaahay subxaana watacaala allah idin guuleeyo allah idin barakeeyo allah idin cizeeyo dhammaan aada iyo aadaad umahadsanti cabdifataax cabdi yuusuf cabdiwa